magacaygu waa daahir maxamuud ducaale oo ku magac dheer daahir dhaad kana tirsan maxaan ku dhahay dadka ama mujaahidiin ha la yidhaaha ama muwaadiniin ha la yidhaaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay una soo dhibaatooday dadkii halgankii maxaan ku dhahay saamaynta ku lahaa waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo qodobo yar oo kooban qodobadaasoo ah qodobada ku maxaan ku dhahay ku soo noqnoqday Soomaaliland ilaa iyo 94kii ama ilaa iyo 93kii waqtiga loo gaadhay ilaa abtinow qodobadaasoo ah maxaan ku dhahay dadka bulshada Soomaaliland boqolkiiba 80 ama boqolkiiba 70 kamid ah marka la yiraahdo waa Soomaali weyn waxa weeyaan taasi waxay dheemish ku tahay oo ay waxa kuri nabar ku tahay wixii loo soo dagaalamay ee maxaan ku dhahay bulshada Soomaaliland ay u soo dagaalantay bay horta marka hore jiritaankeeda ay ku tahay baan ku dheemish iyo maxaan ku dhahay dignitigoodii la dilay ay ku tahay marka hore waxaan u sheegayaa haddaba bulshada reer Soomaaliland waxaan fahamsiinayaa ma aan la wadaagayaa anoo ka faa'iideysanaya fursadan war bal horta ninka maxaan ku dhahay ilaa 94kii cid baa Soomaali weyn la daba taagan Soomaaliland la daba taagan ayaa Soomaaliya lugta inoo haya oo maxaan ku dhahay isagu cadow inagu ah mise waxa ah kuwa waxaan ku aan meel laba ku biirin ee ayagoo halkii ay maxaan ku dhahay halganka kaga soo qayb galeen wali jooga maalin walba waxa lagu hadlayo su'aasha jawaabta waxaan malaynayaa anoo shacabkan u dhaafi lahaa haddana si yar oo kooban idinku iftiimiyo waxa weeyaan waxa cadow ku ah Soomaaliland ninka maxaan ku dhahay bulshada Soomaaliland qayb kamida oo 5 gobol degta magaceeda ku sheegaya waa Soomaali weyn tusaale ahaan Soomaaliland maalintii dhaweedeed ay ka hadleen qoladii qadiyada maxaan ku dhahay Soomaaliland ay ka hadleen qoladii maxaan ku dhahay xildhibaanada Ingiriiska maxamed kaahin axmed baa wuxuu caarad iyo muxaafid buu weyn soo baxnay waxaynu ka dareen celinay waxa ay Soomaaliland doonaysay waxay u socotay maxamed kaahin axmed isaga oo maxaan ku dhahay laascaanood munaasabada kaga qayb galay wuxuu halka ka lahaa xusbiyada mucaaradka ah halkaynu u soconana uma socdaan waxaynu doonaynaa dooni maayaan bal waxaan bulshada Soomaaliland weydiinayaa dadka maxaan ku dhahay marka la yiraahdo labada xusbi mucaarad iyo taageerayaashoodu bulshada waa ka imisa beersanta weey waxa weeyaan waa la garan karayaa waa tirada u badan bay noqonayaan labada xusbi qaran iyo dadka taageersani Soomaaliland goonistaaggeeda dooni maayaan markuu leeyahay Soomaaliland yaa cadow ku ah oo marka ceebteeda iyo fadixadeeda dhigdhigaya cid hadalka la dhigdhigaysa waxaan leeyahay dadku ha fahmaan cid u socota xamar ee xamar la shaqeynaysa ee xamar waxaan ku maxaan ku dhahay iyo koonfurta Soomaaliya la shaqeynaysa waa cid wixii loo soo dhintay ee loo soo halgamay nooca maxaan ku dhahay maalin walba maxaan ku dhahay maxaan ku dhahay hadalka ku dheemishka cid la soo taagan weeyaan horta marka hore bulshada Soomaaliland sida ha u fahanto horta marka hore saasaan leeyahay tusaale kooban oo kale dadka gobolada bariga ama maxaan ku dhahay Sanaag oo kale waa maqayseen xukuumadda Muuse Bixi si buuxda bay u yiraahdeen taga awalba waxba nameydaan tarayn lacagteedu baa cunaysiin taga markay leeyihiin dadka iyo dhulkoodu kala hari maayaan dadka ay leeyihiin tagoo iska tagana waa dadkii reer Soomaaliland ee waliba ugu facaweynaa Soomaaliland bal waxa reer Soomaaliland oo isweydiisaan markay sidaa leeyihiin waxay hibeeyeen oo Soomaaliya u hibeeyeen bulshadii Soomaaliland dadkeedii iyo dalkeedii qayb kamida bay u hibeeyeen markay sidaa tahay makaasaa jamhuuriyaddii Soomaaliland kala qaybiyay oo cadow ku ah mise ku wala war sharciga aan ku soo noqono saaxadda siyaasiga aan ku tartanay wixii inoo dhaxeeyay inoo qababa cadow ku ah su'aashaasi waxay tahay waa la garanayaa waxa cadow ku ah ka Soomaaliland qaybinaya ee kala qoqobaya ee badnala iska taga iyaga dhulkoodii israacinaya haddii cid iyo dhulkooda kala harayaan innaga waxaan ku rejiimkii Maxamed Siyaad Barre dhulkan inaga tirtiri lahaa dadkii dhulkooda ma kala haraan marka xukuumadda cid leedahay maxaan ku dhahay iska taga ee af xukuumadeed mas'uuliyad intii u sareysay sida leeyihiin ay dhulka iyo dadkii lahaa waa la israaciyay waxay arintaas markaa noqonaysaa in Soomaaliland qayb kamida loo hibeeyay Soomaaliya waa arin ku ah jiritaanka Soomaaliland iyo qarannimadeedaba ku ah cadownimo iyo dheemish waxaan leeyahay markaa waragga sida maalin walba u hadlaya ayaga wixii ay ayagu ahaayeen bay bulshada inta kale ku sheegayaan si ay weaknesskooda iyo maxaan ku dhahay khiyaamadooda ugu qariyaan oo ay dadka kale uga indhihooda uga jeeyaan ayay cid kale ku sheegayaan waxaanay hayn
waxaan leeyahay arrintaa bulshada reer Soomaaliland dadka Soomaaliland jecel fiiro gaar ah u yeeshaan si gaarana ha uga fakaraan wax maxaan ku dhahay si qoto dheer oo fiirsasho leh ha uga fakaraan bulshada Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa ugu dambeyn warwada jirkiina iyo wadaalnimadiina iyo nabadiina cidda gardiidka ah ee wixii ummadda ka dhaxaysay la qaban maayo ciddaas cadow ku ah cidda meel uga soo wada jeesto iska qabta cidday doontaba ha noqotee ninka reernimo ku taageera ninka maslaxad ku taageera ninka maxaan ku leeyahay maskab xil uu hayo ku taageerow waxaad ogaataa masiirkii Soomaaliland iyo masiirkii ubadkaaga iyo masiirkii waalidiinta iyo masiirkii dadkii soo halgamay ayaad horta marka hore wax yar oo kooban dhaafsatay sida ula socod sida ugu arrintaa waxaan ku soo koobayaa anigoo ku ururinaya war kala qaybinta iyo maxaan ku dhahay bulshada marba meel loo kala qoqobaya ina wadi mayso reer Soomaaliland wada jirkeena iyo maalinba ninkii gardaran in la yiraahdo adeer halkaas joog sharciga ku soo noqo in la yiraahdo ayay wada jirkeena iyo jiritaankeena iyo ummadnimadeenu ku sii jiraysa hataa hadii laga gudbo oo la dhaafo oo sharcigii uu musabixi waxa weeyaan ku yimi ee doorashada lagu galay uu maanta yiraahdo ma jiro oo adoo doorashadaadii ka soo horeysata ururada iyo maxaan ku dhahay ururada ay ka soo horeysabaan taada dib dhigaya ururadana soo hormarinaya adigu dhima aniguna aan noolaado taasi inaanay soconaynin oo bulshada Soomaaliland aanay dhaqaynin nin kasta oo caqli leh uu garanaya waxaan ugu baaqayaa dadka reer Soomaaliland ee jecel nabadda iyo wada jirka iyo maxaan ku dhahay jiritaanka Soomaaliland arrintaasi hadhowto kadaba tageed waxba tari maayo in maanta in laga hortago oo si cad laysu hortaagaba wax ku taraya sidaasaan ku soo ururaya ereyada kooban baan leeyahay muusow ereyga u dambeeyay kaga tagaya in adeer adiga oo maxkamadii haysta oo milatarigii haysta oo madaxweynihii haysta oo maaliyadii haysta ayaa haddana rag banaanka taagan ku leeyihiin war nala tartan haysta markaan leeyahay intiiba waxaad u dhiibatay cid xigtadaada haddana sidaasay xigtaday annagana waa xigtadayda kuwaas shisheeye ka dhigan mayno dad reer Soomaaliland baan u aragnaa xilalkan xaq u lahaa in kastoo ku fiicneed in saami qaybsiga bulshadu ka wada muuqato maskabada maxaan ku leeyahay sida u muhiimka laga wada muuqdo in kastoo ku fiicneed haddana waxa weeyaan may dhicintii waxa weeyaan tii adigu aad shalaysiyaad barka kaga cabanaysaad qodbadaadii kaga hadlaysay baan ku edhiin mayga ayaad adigu ku suntantay waxaan ku leenahay sharciyada ku soo noqo waxyaanu shaydaanku yaanu ku harkatumin wixii halka ka dhacay dhibaato ee foolxumaana cidda mas'uuliyadeeda hadhowta qaadi doonta waa adiga madaxweyne waxaan ku leenahay ku soo noqo sharciga ku soo noqo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad basaasana ku leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland